السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. halkani waa golaha 96 golaha codka shacabka Soomaaliyeed magacaygu waa Maxamed Xasan Dulood waxa loogu martiyaa golaha ka 96 aqoonyada aad u taqaanaan ahaan jiray wasiirka waxbarashada wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waa Cali Xaaji Warsame. Cali Xaaji Warsame aad baan ku soo dhaweynaa waa golaha 96 waa golaha Soomaali oo dhan siyaasiyiinta aqoonyahanada cid walba lagu waraysto. Cali Xaaji waxa jirta bal inaad taadu u sharaxan tahay madaxweynaha marka horta maxaa ku kala madaxweynimada u sharaxda adag degoodo aad baan ku salaamayaa dhammaan waa salaamayaa dhageystayaasha 1960 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waraysigan ugu horeyn waxaan ahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyeed 2016 maxaa ku kalifay waa su'aal dheer haddaan soo gaabsho degoodo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii wax ku bartay Soomaaliya iyadoo dawlad ah ilaa iyo heer jaamacadeed markii wadanku burburayna waxaan ka mid ahaa dadkii muddo ka shaqeeyay Soomaaliya ka bacdina dibadda uga baxay si aqoontooda iyo khibradooda u soo kordhiyaan markaan wadanku soo noqdayna waxaan ka shaqeeyay meelo muhiim ah oo ugu horeyso shirkadaha wadanka kuwa ugu waaweyn sida isgaarsiinta waxaan ka shaqeeyay waxbarashada oo aan jaamacaadka iyo instituteska la midka aan ka jeedin jiray lectures wax la mid ah si aan aqoontida ugu gudbiyo daayarta waxaan ku jiraa dadka Soomaaliyeed kooban ee la yiraahdo waa dadka ku takhasusay arrimaha maaliyadda waxaan haystaa shahaadada CPA-da waxaan ahay certified global management accountant waxaan ahay licensed auditor waxaan aaminay inaan dalka wax ku soo kordhin karo kama bilaabin dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo heerka dowladda dhexe laakiin waxaan ka soo shaqeeyay Puntland saad sheegtay oo aan ka qayb galay electionkii 2014 ka bacdina waxaan sabab u ahaa dadkii isbeddelka keenay maadaama anigu aan usoo gudo wareegga labaad oo ilaa 16 cod aan helay madaxweynaha xilka hadda hayaana 18 buu helay halka madaxweynaha hore uu ka helay 31 isku darkii numberska dambe baa keenay in madaxweynaha cusub yimaado ka bacdina wasaaradda waxbarashada baan ka shaqeeyay waxaan aaminsanahay markii la iga wareejinayay inaan wax weyn ku kordhiyay oo muujin kara markhaatina ay ka yihiin dadka Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba maadaama ay suurtageli weyday inta aan ku dhamaystiro maadaama ay suurtageli weyday inaan heer Puntland ka soo shaqeeyo waxay muuqatay meel kale oo wax ka qaban karo inay tahay dowladda dhexe waana waxbaana ku soo kordhin karaa waxaana aaminsanahay haddaan ku guulaysto inaan isbeddel iyo wax weyn ku soo kordhin karo هذا عادي بس عاد waxay isu weydiiyaan aniga xataa kula hadlayo digoodii aad isu weydiiyay waraysiyo fara badan oo aad bixisayna aan dhageystay isbedel baa Puntland ku soo kordhiyay haddana waa soo hadal qaaday isbedelka Puntland ee la taaban kare aad ku soo kordhisay oo aad rabtay Soomaaliya ku soo kordhiso haddii ba lagu doorto muxuu yahay dadka mawlid balangareysa xoogaa ma u sharxi kartaa baad isbedelkaas محمد horta Puntland iyo way kala duwan yihiin dowladda dhexe saad la socotay Puntland mas'uuliyadda waxa iskale madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenku waa la taliye in alla inta madaxweynuhu joogo hadduu maqan yahayna isaga booska madaxweynaha jooga waxaad la socotaa dowladdii hore oo madaxda uu ka ahaa Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole waxa ay bilowday barnaamijka democratization-ka barnaamijkaasi waa guulaysan waaye waa laga noqday wadanka waxa la ogyahay dhaqaalihiisa Puntland oo wadan aad isugu filana inuu aad iyo aad wax isaga bedeleen doorashadu inay dhacdo arrin sahlan ma ahayn waxaad la socotaa in musharaxiinta qaarkeed magaalada laga celiyay qaarkood inay xataa magaalada Garowe caasimadda iman waayeen anigu waxaan qofkii ugu horeeyay caasimadda soo galay musharaxiinta kale ku dhiirigeliyay inay yimaadaan oo ka soo noqdaan meelihii kale musharaxiinta qaarkood oo loo diiday oo kamid ahaa wasiirkii maaliyadda Puntland hore isagana sabab weyn maan ku lahaa inuu doorashada ka qayb galo
kadib markii aan suurtageliyey aniga rag kale inuu yimaado magaalada oo ka qayb qaato aan dhexda lagu celinin waxaanu ballan qaadnay inaanu puntland wax ka bedelno waxaanu taageernay madaxweynaha hadda xilka haya oo nin aqoon-yahan ahaa dowladda dhexe kasoo shaqeeyey waxay ahayd barnaamijkii lagu heshiiyey intaanan doorashada gelinin in ay puntland kusoo korodho nidaam ka duwan kii hore lagu dhaqayay hadday noqon lahayd xagga baahinta maamulka hadday noqon lahayd xagga baahinta maaliyadda iyo controolkeeda oo puntland miisaaniyad lagu maamulo hadday noqon lahayd khadamaadka ijtimaaciga ah dad dhalinyara oo aqoon-yahan ah oo waxaan isu arkanin legacy ka tegi kara doorashadaasi waad ogeyd meel adag bay istaagtay anigu waxaana afhayeenkii musharaxiinta ku hadlahay magaca madaxweynaha hadda jooga iyo intii kaleba luqadaan ku hadlayay iyo isu soo dhaweyntii dadka iyo xiriirkii maamulka iyo annaga markhaati ilaahay bay ka yihi puntland inaan wax weyn ku lahaa luqadaasi inay wax badan sahasho maadaama ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo markaa madaxweynaha u tartamaya haddana madaxweynaha ah iyo madaxweynihii cabdiraxmaan ay aad iyo aad u kala fogaayeen duruufo jiray doorashooyinka 2012 iyo ka bacdiba marka waxaan qabaa in aan anigu barnaamijkaas lafdhabar u ahaa barnaamijkii inuu fuli waayo hadda anigu kuma guulaysan maaragtay xilkii kuma guulaysan qaybtii aan qabtayna waa ka soo baxay marka meesha aan ka laaxidaya oo aan leeyahay waxbaan kusoo kordhiyey markhaatina ay ka yihiin bulshada puntland waxa weeye doorashada inay si xalaala ku dhacdo si degan inay ku dhacdo luqad dhexdhexaada inaan isku isticmaalo inaan anigoo ku hadlay magacii musharaxiintoo kale ku dadaalo language dadka isu soo dhaweyn kara isu keeni kara inaan u horseedo in caasimadii laisugu yimaado doorashadu ka dhacdo markii doorashadu dhammaatayna aan u hambaliyeeyo madaxweynihii lana soo shaqeeyo waxaan qabaa inay isbedel muhima ahayd laakiin runtii isbedelkaan rabnay dhinacyo fara badan ma suurtagelin aad baa mahadsan cali waxaa jirta in doorashadu mar hore dib u dhacday kii hore la sugayena laga baqsay gebigeeda hal qof iyo hal cod ka ahayd haddana waxaad moodaa maadaama baarlamaanka weli aad goboladadu soo xulinta waktigiina uu dee november soddonkeeda bay yahay sidii hore doorashadiisu ay tahay dee ku muuqataa in dib u dhac meesha ku jiro haddiise dib u dhac yimaado maxaad u maynaysaa rajada soomaaliya ka qabteen doorasho qabsoontaba maxamedow dib u dhac ma jiraa dib u dhac waa jiraa waana dib u dhac lagu talagalay waxaad og tahay madaxweynaha xilka hayaahi maalintuu xilka la wareegay 2012 mandatekii lagu doortay waa caddaa inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah inuu dhiso ciidankii qaranka maamulada inuu si xalaala oo dastuurka waafaqsan u dhammaystiro inuu Soomaaliya reconciliation iyo dib u heshiisiin sax ah oo la isku cafiyo oo commissionskeedii iyo uradeedii ay leeyihiin sida dalalkii ay ka dhaceen civil warka ama dagaalka sokeeye inuu ka dhigo inuu soo cesho law and order inuu hantida dalka ilaaliyo naftiisana ka ilaaliyo heerkiisana ka ilaaliyo ummadda Soomaaliyeedna uu ilaaliyo waxaad la socotaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu isharraxay 2014 macnaheedu waxa weeye laga soo bilaabo waqtigaas ilaa haddeer wuxuu ka shaqaynayay oo kaliya isaga in la doorto waxa uu soo kordhiyay inuusan ogolaan in dawladdu salka dhulka dhigato oo mandate loogu talagalay ay qabato sidaa darteed 3 ra'iisul wasaare ayuu 3 sano gudahood magacaabay 170 wasiir ku-xigeen iyo wasiir dawladeed ay soo kordhiyeen wasiir xafiiskiisii sanad iyo barjoogay ma jiro taasi waxay keentay marka waxba inaanay dawladdu qabanin hantidii dalka waa la dhacay waa la socotaa jaamacadihii shiraaladii deegaanadii dhulkii wasaaradaha dhulkii wakaaladaha hay'adihii waxaasoo dhan waxaa lagu gaday open tender ama xaraash guud oo dalkoo dhan la saaray waxaan qabaa inaysan dawladdaani kuba talagelinba doorashada waqtigeeda inay dhacdo waxaad og tahay bishii July 2015 ayay hal mar afka iskashaday madaxweynaha iyo tiimkiisu waxayna yidhaahdeen Soomaaliya aan u sheegno inaanay doorasho one man one vote dhacaynin meel laga aadan aanan aqoonin arrintaa waxay keentay inay abuurmaan waxa loo yaqaan National Leaders Forum ama hogaanka madasha hogaanka qaranka oo ka kooban madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka iyo madaxda maamulada halkaas ay ka soo bilaabatay ayantaradii Soomaaliya 4.5 oo xaaraan ah oo ahayd in laga tago
oo qof Soomaaliya oo xalaala uusan ku soo bixi karinin oo ummadda Soomaaliyeed aanay ku walaaloobi karinin oo qofna aqoontiisa iyo xirfadiisa uusan ku imaan karinin haddaanu reer hebel ahayn baa dib loo soo nooleeyey kabacdina madaxweynuhu wuxuu ku talagalay doorashadiisa inuu wato laakiin ay xilkii ku dhaco 10 September 2016 anigu waxaan ku jira dadkii waqtigaa joogay ee magaalada Muqdisho waxaanu madaxweynaha ka codsanay inaanu dalka jirinin constitutional crisis ama khilaaf ee dastuuri aynuusan gelinin inuu maantay oo ay tahay bishu 9 September inuu xilka iska wareejiyo sida ku qoran constitutionka dalka haddii madaxweynuhu xilkiisa ka soo bixi waayo ama waqtigiisu dhamaado waxaa xilka la wareegaysa ku meel gaara ra'iisul baarlamaanka muddo 30 maalmood laga rabaa inuu doorashada ku dhamaystiro ilaahay madaxweynaha ma waafajin kuma uusan talagelin sidaasuu xilka ku haystaa isagoo waqtigiisii dhamaaday isaga iyo prime ministerkiisa baarlamaankuna wuxuuba dhamaadayba 20 September marka doorashadu inay dhici weydo waxay ahayd wax la diyaariyay wala cadka cunay ama ciideeyay halkee laga aadayaa maantay haddii arrintii sidaa tahay waxay la tahay beesha caalamku way ku fashilantay arrintaas markii hore waxay yiraahdeen waxba lagama bedeli karo mandate-ka dowladda dhexe iyo doorashooyinkeeda 10 September arrinta markii suurtageli weyday waxa ay haddana waafaqeen in laga dhigo 30 markii suurtageli weyday haddana waxay waafaqeen in laga dhigo 30 November kii hore 30 October buu ahaa waxa halka ka soo baxday inaanay awood u yeelan inay dowladda mandate-keeda ku soo celiyaan qaraaradii baarlamaanka Soomaaliyeed iyo madasha qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo waliba Security Council-ka midna inaan la xurmaynin maantay dalkii waxa haysta madaxweyne aan sharci ahayn ra'iisul wasaare waqtigiisii dhamaaday ra'iisul baarlamaan waqtigiisii dhamaaday ayaan daro weeye haddaan la isku iman oo musharaxiinta iyo guddiga doorashooyinka dadban heer federaal iyo beesha caalamka iyo madaxda waqtigoodu dhamaaday haddaan inta la isku imaan aan la wada hadlin Soomaaliya doorasho inay ka dhacdo waa adag tahay intaa waxaad ku dartaa security magaalada Muqdisho oo farihii ka baxay waa la socotaa xiriirka dhow oo ka dhaxeeya anuu saan aaminsanay dowladda iyo xoogagga ka soo horjeeda ee wax laynaya 18 xildhibaan baa lagu dilay xamar intii madaxweynahan xilka hayay intaasoo hotel baa la weeraray maanta waxaa la weerarayaa madaxtooyadii iyo aqalkii madaxweynaha weeye wax ka xunna madaxweynaha ma jiraan caadi u shaqaynaya amkaadiisii iyo xilalkuu qabtay iyo Soomaaliya meeshuu gaarsiiyay baa laga sheekaynayaa maamullo aan waafaqsanayn constitutionka oo sharci ahayn ayuu dhisahayaa ummadda Soomaaliyeed colaad cusub ayuu u hurinayaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya meel khatar bay ku socotaa doorashadaas waa aad u xun weeye inay suurtagelisana shaki badan baa ku jira waayahay ali bal hadda dhinac kale aan u eegno waxaa jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gruubka isaga la shaqeynaya waxay isticmaalaan oo doorashada kaambeynka ku wadaan waa hantidii qaranka ama tiifiyaha taaba diyaaradaha taaba dhaqaale waddanka ahaato masariixyo fara badan oo kale ayaa jira oo iyana Muqdisho jooga amnigana waa bataa hadda ka waramaysa adigu maadaama aan intooda badan xildhibaan ahayn xildhibaanada haddii ay yimaadaan xataa meel lagu xarayn doono rajaynta leeg baa idinku qabtaan inaad muxuu ahaaye si amni ah iyo si ogolaansho sharci ah baad ugu heshaan inaad xildhibaanada ugu tegi kartaan tiifiyada u isticmaali kartaan hantiya dalka ula sinaan kartaan dadka hadda xukunka haya oo doorashada uga qayb geli kartaan maxamed su'aal aad u muhiim ah taabatay madaxda waqtigooda dhamaaday waxay u shaqaynayaan waxa la yiraahdo business as usual waxay u shaqaynayaan sidii ay yihiin madax la doortay oo awoodii dastuurku siinay gacanta ku haya madaxweynaha xilkiisa waa dhamaaday waa sheegay ra'iisul wasaaraha isaga magacada waqtigiisa waa dhamaaday waxa ugu wanaagsan oo noqon kara waxa weeye caretaker government ama dawlad ku meel gaar ah xaq uma laha inay dhaqaalaha isticmaalaan xaq uma laha inay security-ga maamulaan xaq uma laha inay meediyada qaranka maamulaan xaq uma laha inay musharaxiinta ka duwanaadaan arrintaasi ma muuqato waxaad ogtahay annagu 9 iyo 8 September shir baanu ku qabanay 2016 shir baanu ku qabanay magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka ah shirkaasi waa la socotaa musharaxiin badan baa ka qayb gashay xataa waxaan loo diiday inaanu ku qabanno
mataqaan warbaahinta kula hadalno airportka dhexdiisa banaankiisaan kula hadalnay 2 maalmood baan shiraynay kalaanu soo gudbinay hal daqiiqada ma aysan soo qaadin TV-ga qaranka lagu sheegayo iyo raadiyo muqdisho xataa kulanka yagii iyadoo news ay tama xataa ma ayna soo qaadin marka madaxweynuhu wuxuu ku dadka ku shiiranayay hoteelada magaalada ugu waaweyn wuxuu isticmaalayay gaadiidkii dawladda wuxuu isticmaalayay raadiyo muqdisho iyo TV-ga qaranka waxa uu ka hadlayay TV-gu waxa uu dalka u qabtay meeshu gaarsiiyay masjid darro weeye arrinta xaq uma laha doorasho waxa ku dhisanna xalaalna noqon mayso xalna noqon mayso doorasho xorana noqon mayso musharaxiinta nimanka baarlamaanka ma u leenahay xaq sida dastuuriga waxa weeye in aanu u yeelano access ama xiriir toos ah security-ga waa ka sheekeeyey dagaalkii wuxuu gaaray in si aanan ugu helin fursad inaanu la kulanno xubnaha baarlamaanka la soo dooranayo in ragga iyaga culus oo doorashada looga baqayo in laga mamnuuco xataa inay aqalada soo galaan waad la socotaa aniga waxaa iga qabsaday puntland rag fara badan musharaxiina waxa meelaha kale ka qabsaday waxaasoo dhan waxa weeye inaanan fursad u helinin inaanu la kulanno xubnaha baarlamaanka siday madaxda hadda joogayay kuwii horeba ay fursad ugu heleen in la siiyo xubnaha si ku meel gaara madaxweynaha hadda puntland xilka haya baa sidaa lagu siiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa sidaa lagu siiyey wixii shalayta loo ogolaado ay ku tartameen oo talada dalka ay kula wareegeen ayay maanta bilaabeen inay annaga noo diidaan halkaa doorasho fara oo xalaalihii kama muuqato waxaana runtii aan u malaynayaa xamar oo caasimadii ah inaanay suurtagalba ahayn doorasho fara inay ka dhacdo maxaa yeele amni laguma haysto hotel amniya ma jiro guri amniya ma jiro meel laysugu imaan karaa ma jiro xildhibaanadii waa lagu laynayaa waxaana qabaa amni xumada inay dawladda laftigeeda hadda madaxdeeda waktigooda dhammaaday ay qayb ka yihiin marka halkaa khatar baa kasoo muuqata beesha caalamka waa kala hadalnay dhawaan waad la socotaa garoowe aniga iyo musharaxiin kale waxaan kula kulannay SRSG-ga ama wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating iyo wakiilka ama ambassadorka Africa Madeira waxaanu ka wada hadalnay inta ugu muhiimsan security-ga waqtiga intiqaabaadka midka musharaxiinta midka xildhibaanada si suurtagal u tahay magaalada xamar ahayd in laga shaqeeyo election lagu qabto hantidii qaranka oo sida khaldan ay u isticmaalayaan malaayiinta dollar oo ka soo xaroonaysa dekada iyo airportka oo jeebkooda ku dhacaysa miisaaniyada dawladda aan galaynin lacagaha ay musuqmaasuqa ku bixinayaan oo codka ay ku gadanayaan oo wadanada ay u kala dileen maamulada oo dhan oo qaarkood aan ognahay in annagana la kula dagaalamay waxaasoo dhan baa miis ka saaran waa arkaynaa wixii ka soo baxa beesha caalamka laakiin annagu waxaan u jeednaa ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa halkaa waxaa ka socda riwaayad aad iyo aad u foolxun haddaan wax laga bedelinna cawaaqib xumo soomaaliya u jiidi karta waa gase waxaa jira dhawaan in la doortay aqalka sare oo dowlad goboleedada intooda badan weli muran waa ka jira kuwan qolal hargeysa inkastoo ay sheegayeen matalinta oo xamar jooga waxaa la sheegayaa in muxuu ahaay dad fara badan oo lacago fara badan sitaa oo laaluush bixinaya doorashooyinka ka qayb galeen innaba adigu intii aad meelaha joogtay ama si aad war ka hayso ma jiraan lacago fara badan oo loo isticmaalay doorashooyinkaasi kuraasta aqalka sare lagu qabo maxamed oo arrintaasi ma qarsoona umana baahna evidence aniga bulshada Soomaaliyeed meel alla meel ay joogaan way og yihiin dhaqaalihii halkaa lagu isticmaalay dhaqaalihii la isdhaafsaday dhaqaalihii lagula diray musharaxiintii xilkan u imaan lahayd oo xalaasha ahaa dad fara badan oo miisaan dalka ku leh wax badanna kusoo kordhin lahaa in laga saaray oo banaanka la dhigay iyadoo dhaqaalaha loo adeegsanayo waxaanse kuu sheegayaa sideeda hadday gacantooda kusoo qortaan taariikhda waxay caddaysay in aan madaxda qaranka oo markaa joogtaahi aanay ku filayn lacag kaliya inay bixiyaan wax rikoor ah oo maanta dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ummadda Soomaaliyeed ay la hortagto oon ahayn musuq maasuq dil xildhibaanadii magaaladii xamar oo amnigeedii xumaaday oo 2012 ka daran yahay ummadii Soomaaliyeed oo kala fogaatay
maamul xumo dalka baahisay hantidii qarankoo la dhacay waxna la iibsaday waxna la qaatay ciidankii Soomaaliyeed oo la dhisi lahaa oo ciidan beeleed loo bedelay mushaaraadkoodana la qaatay oo xataa kuwa mushaaraadkoodii aan la siinin dalka Soomaaliyeed oo la sii kala fogeeyay dagaalo laga huriyay maamulada dalka ka jira wax rikoor ummadda Soomaaliyeed ay la horiyimaadaan ma jirto waxaan garanayaa 2012 lacag baa sida loo bixiyay kuwii lacagta bixiyana kuma guuleysan qofka xildhibaankaahi in badan baa iman doonta oo kashiiskooda iyo dareenkooda isticmaali doonta mar alla markay helaan warqadana waa axraar weeye sidaa darteed waa lagula tartami karaa laakiin waxaan lagula tartami karinin inay dhaqaalihii dowladda iyo maamulkeedii iyo hantideedii iyo amnigeedii gacanta ku hayaan arrintaas way arrinta aan marna sharciga ahayn inay iyagoo sharci ahayn oo dalka madax rasmiya u ahayn inay u dhaqmaan sidii madax rasmiya oo ambassador ama safir ay magacaabahayaan taliyaal ay dalacsiinahayaan lacag ay bixinahayaan guud iyo contract ay galayaan taas way midda beesha caalamkuna ku fail garowday in laga yeelaana aysan ahayn annaguna aanu khasbayna hadda in arrintaa dib loo fiiriyo waad la socotaa 6 bisha November ayay beesha caalamka u qabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisa waxay ka sameeyaan waa dowrayna waayahay waxaa jira dagaalo soo noqnoqday oo fara badan oo gobolkaasi mudug ka jira arrintaas siyaasi ahaan sida horta waragtaa maxaa soo celcelinaya xalka maxaa lagu leeyahay walaalow mudug gobolka mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waa la socotaa dagaaladaan markii ugu horeysay ee ka dhacan maahayn 19 iyo ka horba dagaalo aad iyo aad xun baa ka dhacay laakiin 93 iyadoo magaalada dad aad u fara badan lagu laayay oo dad aad u fara badan lagu dhacay oo hantidoodii lagu qaatay ayaa haddana waxaa suurta gashay inay ummadaasi wada fariistaan waxgaradkoodii odayaashoodii maamulkoodii dabeedna waxaa soo baxay heshiiska macruufka ee la yaqaano ee ahaa heshiiskii dib u heshiisineed oo Soomaaliya ugu dheeraa 23 sano baa lagu wada deganaa iyadoo dadku ay wax ka dhacayeen laakiin wax weyn aan ahayn maantay waxaan qabaa waxa keenay dagaaladan aan joogsanaynin waa arrin siyaasadeed weeye waxaan ku qanacsanahay in kor laga maamulayo ilaa xamar inay xiriirsan tahay maamulka dalka ka jiraahi inay qayb ka yihiin arrintaas dadkaasi ma tashan waayin waa wiil iyo walaalkii waa wiil iyo seedigi waa wiil iyo sodogi waa gabar iyo dumaashigeed waa gabar iyo sodogeed waa dadkii qarannimada Soomaaliyeed qayb weyn ku lahaa hataa dib u noqoto 13 Israel markii laga hadlayo mudugtii hore oo ilaa Soomaaliyeed ay ku jirto gobolka Galguduud ilaa iyo 7 kamid ah baa gobolka ka soo jeeda waa dadkii qarannimada Soomaaliya madaxda qaranka ugu horeysay ee ka yimaadeen anigu waxaan qabaa arrintaasi dadkaasi ma tashan waayin laakiin dana siyaasadeed baa laga leeyahay waxaa la doonayaa doorashadan in lagu mashquuliyo dadkaasi inay mudoobaan ummadda Soomaaliyeedna ay u horseedaan wixii laga filayay iyo waxay ahaan jireen waxaad ogtahay dad fara badan oo gobolka ka soo jeeda sharaxan waxaan qabaa dadkaas in loo diidayo inay wada fariistaan ummadaasna walaaleeyaan dadkaasi waa wada hadli karaan waxaan qabaa xalku inuu yahay in ummadaas fursad la siiyo inay wada hadlaan heshiis bay lahaayeen haddii ka uu burburayna midkay ku bedeshan waa inay ka wada hadlaan haddii isagii taagan yahayna waa ay isugu imaan karaan waxaan aaminsanahay in haddii laga dhex baxo oo fursad la siiyo ay heshiin karaan anigu waxaan ku jiraa dadkii aada ugu baaqay in nabadaas la soo celiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaad moodaa weli baaqaasi waa socdaa taasaana keentay wax dagaala inaanay ka jirin magaalada Gaalkacyo dhexdeeda dagaalka aad maqlaysaan magaalada banaankeeda weeye laakiin magaalada gudaheeda wax dagaala oo ilaa hadda ka dhacay ma jiraan waan fiican iyo hadal baa socda haddii la isu daayo dadkaasi waa ku filan yihiin inay toodana xalistaan ummadda Soomaaliyeedna ayagoo wada jiro gacmaha ay haysta hormuud ay ka noqdaan qayb baan anu ka noqonaya waana ka ahay waxaan rajeynayaa insha Allah in lagu guuleysto waayahay waxaa jira heshiis dhawaan ay galeen maamulka Soomaaliland ka aqriya iyo dalka Imaaraadka waliba sida company dekadaha qaabsan
حقا horta marka hore yaa mas'uuliyadda iskale inuu wadan u saxeexo hantida qaranka ama ummadda ka dhaxaysa sidoo kale waxaa jira arrin kale oo iyana soo cusboonaatay oo imaaraadku saldhig military berbera kaga qaba mas'uuliyaddu yay saaran tahay doorka dowladda federaalku muxuu yahay maxaa ka soo bixi kara heshiiskaasi haddii uu yimaado in halkaas saldhig military laga bixiyo walaal horta anigu tafaasiisha heshiiska ma hayo ama ka dekada ama midka militariga ah runtii intaan ka ogahay waa in yar oo meediyada ku saabsan laakiin saad la socotid Somaliland dowlad xora oo Soomaaliya ka xora maaha adduunka dowlad laga ictiraafana maaha waa maamul weeye waa rabnaa meel nabada oo maamul ka jiro sida Soomaaliya oo dhammaan u rabno inay noqoto maamul federaala oo nabad ku wada nool oo iyaguna maamul meeshii jiraan wax ka qabta ummadda Soomaaliyeedna wada jir ugu horseeda waxaan ogahay maadaama Soomaaliya international loo ictiraafsan yahay inuu yahay wadan sovereign ah oo xor ah oo hal dowlad ah dowladda dhexe bay noqonaysaa mas'uuliyadda cidda kale iyadaana go'aanka finalka iskale hadday jirto arrintaasi waxaa laga yaabaa inay tahay muwaafaqo dowladda dhexe si ay ku bixisay iyadaana runtii asal ahaan ay usoo noqonaysaa waxayna ka mid tahay waxyaalaha guud ee maamuladu ay uga baahan yihiin dowladda dhexe inay muwaafaqadeeda helaan waana mashaariicda waaweyn oo iyo arrimaha istaraatiijiga kuwa securityga kuwa saamaynta weyn ku leh dalka gudihiisa kuwa dalal kale heshiis lagula gelayo anigu intaasaan ka ogahay laakiin contractiga iyo tafaasiishiisa ma hayo وايد مدن عالي waxaa u sharaxan tahay madaxweyne maxaad ummadda Soomaaliyeed rabtaa in aad u sheegto oo u soo bandhigto oo aad jeceshahay inaad u qabato iska doonaysaa in codkooda kugu siiyaan maxamedow sharaxaadii hore aan ku sharaxay Puntland iyo federaalku waa kala duwan tahay saan ku sheegay Puntland madaxweynaha ayaa ah authority-ga dalka maamulaya isaga ayaana dooranaya wasiiradiisa salaaxiyaadka guud ee xukunka executive-ka ama maamulkana isaga iskale madaxweyne ku-xigeenku marka madaxweynuhu joogo waa la taliye sida ugu qoran dastuurka Puntland markii uu ka maqan yahayna wuxuu haystaa mas'uuliyadii guud ee madaxweynaha dowladda federaalka waa ka duwan tahay awoodda dalka way qaysan tahay madaxweynaha awoodiisa ugu ballaarani waa laba qodob waxa weeye number 1 inuu ilaaliyo dastuurka dalka up to uphold the constitution of the country inuu ilaaliyo dastuurka dalka inaan la khilaafin oo dowladdu aysan khilaafinin inuu kala ilaaliyo maamulada kala duwan ee dalka hadday noqon lahayd midda cadaaladda iyo garsoorka midda xeer dejinta iyo midda maamulka ee ra'iisul wasaaruhu madaxda ka yahay arrinta labaad oo laga rabaa oo ugu weyn waxa weeye inuu dalka u soo qoro ra'iisul wasaare awood iyo karti leh dalka inuu ku maamulo bisina kara dowlad macna leh isagoo madaxweynaha dabcan kala tashanaya wixii aan laga maarmaynin qodobka 9aad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka ayaa cadaynaya awoodda maamulka dalka waxa iskale waxa la yiraahdo council of ministers prime minister kuma leh waxa iskale council of ministers ama golaha wasiirada oo wada jira haddaad fiirto qodobka akhriso inta kale shaqada madaxweynuhu waa ceremonial waxaan ku sheegayaa aniga shaqadayda ugu ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed u soo korinay waxa weeye number 1 aan shaqadayda fahamsanahay haddaad dhegaysato qaar badan oo musharaxiinta ka mid ah waxay ka hadlayaan sidii iyagu inay u sharaxayeen ra'iisul wasaaraha la isma sharaxo isaga laga rabaa inuu madaxweynaha u soo gudbiyo barnaamijka dowladda hadday noqon lahayd amniga heshiisiinta arrimaha bulshada dhismaha ciidamada qaranka xiriirka dibadda iyo wixii la midka ahaa dowlad maamulka loo keenay barnaamijka loo keenay baa la rabaa madaxweynuhu inuu ku soo xusho ra'iisul wasaaraha uu dooranayo arrintaa waa ay ka maqan tahay xataa dad badan oo musharaxiinta ka mid ah waxaa markasta keena khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana waxa weeye madaxweyne raba ra'iisul wasaaruhu inuu hooskiisa noqdo isaguna dalka uu yeesho awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa keenay in
madaxweyne kasta saddex ra-iisul wasaare keenana waxa weeye ra-iisul wasaaruhu markuu shaqadiisa isku dayo inuu markaa isagu xilka uu ka qaado dabadeedna baarlamaan isaga ku xiran iyo qabqablayaal dagaala u jooga iyo caasimad keliga uu maamulo marka inuu ku dhamaystiro inuu awoodiisa ku fuliyo anigu waxaan kuu sheegaya maxamedow shaqadayda waa fahamsanahay kow midda labaad anigu waa soo shaqeeyey ma ihin inaan la aqoon maamul dawladeed iyo mid shirkay labadaba waa kasoo shaqeeyey waxaan aaminsanahay inaan ahay leader tested and trusted qof hogaamiyaah oo lasoo testi gareeyey oo lasoo aaminay waxa ugu weyn aan ku qanacsanahay waxa weeye in han igu jiro soomaaliya inay soo noqoto dawlad xora noqoto kusoo noqoto meesha laga filayo nabad iyada nafteeda iyo bulshada caalamka ay kula noolaato waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay aniguna aan buuxin karo madaxweyne jeedkiisa ka weyn han leh kala yaqaana xoolaha isaga uu leeyahay xoolaha qaranka iyo xoolaha qoyskiisa soomaaliya waa dad walaala isu soo xesha si xaq ah maamulo xalaala dhisa ciidankii qaranka ka qayb qaata sidii dawlad xora oo dhisi karta ay u soo celiso oo markaa laga maarmo inta noo soo gurmatay ee waddankeena joogta sida heshiisiin sax ah sida wadanadii dagaalku dhex maray sokeeye rwanda burundi sierra leone iyo wadanada lamidka oo kulligood abuuray guddiyo xalaal ah oo dadka u dhexeeya oo qofkii gafayna uu ka markhaati kaco xolihii hantidii uu samayn uu celiyo qofkii wax ka maqan yihiinna oo wixiisii qaato waxna cafiyo waxaan aaminsanahay inaan jeerkay ka weynahay khibradayda dawladeed iyo midda shirkadeedna aan kusoo kordhin karo soomaaliya waxaan aaminsanahay inay soomaaliya u baahan tahay hoggaan wanaagsan oo xor ah oo dadka soomaaliyeed u siman yihiin waxaan aaminsanahay in uusan soomaaliya maamuli karinin qof aan kala aqoon hantidiisa gaarka ah iyo midda ummadda ama aan aamini karinin dadka la shaqaynaya sida ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada marka insha allahu waxaan rajaynayaa inaan qaybtayda qaato wixii salaaxiyaadkayga dastuurku ii ogol yahay soomaaliyana aan u doono ra-iisul wasaare han iyo kartiya waayahay dadka kaa dhegaysan doona haddii ilaha yidhaahdo websaydada golaha la leeyahay oo websiteka arrimaha gaadcam iyo websiteka golaha 1960 iyo mujtamaca soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxaad jecesha inaad caawa ku tiraahdo mudane cali xaaji warsame mudane waa mahadsan tahay ugu horeyn ummadda soomaaliya waxaan u sheegayaa inay ilaahay ka baqaan soomaaliya taariikhday ka baxaysaa haddaynu sidaan ku soconno dal ballaaran baynu leenahay qani ah khayraadkiisu badan yahay ilaahay nicmo xoolo iyo bad iyo beeraba ku manaystay waxaana haystaa waxa la yidhaahdo leadership crisis ama hoggaan xumaana haysata in ummadda soomaaliyeed ay ugu horeeyaan xildhibaanada lasoo dooranayo ee labada aqala inay soomaaliya u hiiliyaan inay gabdhaha iyo wiilasha badda ku dhammaanaya u hiiliyaan inay qurba joogta dalkoodii usoo noqon lahayd oo maal gashan lahayd u hiiliyaan inay culimmada soomaaliyeed u hiiliyaan inay dumarka ee soomaaliyeed ee balanbalaya adduunka iyo qaxootiyada dadka jooga 25 sano ay u hiiliyaan xildhibaanada xilkaasaa saaran culimmada waxaa saaran inay ummadda soomaaliya isu soo dhaweeyaan iyaga ayaa ah cidda aaminsan ama gacanta ku haya diintii ummaddani aaminsan tahay ummaddan dad islaama weeye dad waxa weeye u baahan in la badbaadiyo nimanka dhalinyarada ee shabaab waxaan ugu yeerayaa hadday xukun rabaan inay ka qayb galaan talada dalka inay xabadda ummadda soomaaliyeed halakaysay oo aqoon-yahankii waxgaradkii culimadii ciidankii dadkii khibradda ahaa baabiisay oo soomaaliya u soo jiiday in gacan kale lagu maamulo inay ka daayaan soomaaliya maantay dadka soomaaliyeed masaajida kuma tukadaan salaada maqribka cishaha iyo salaada subax way garanayaan iyagu inay baabaan oo la laayo dhalinyaradaasi soomaaliya dan uguma jirto waxaa la rabaa inay ogolaadaan wadahadal iyo amni dalka in lagu soo dabaalo lagana maarmo in ciidan kale dalkeena uu joogo dumarka iyo aqoon-yahanka waxaan ugu yeerayaa inay doorkooda qaataan gabdhuhu doorkooda waa qaateen soomaaliya waxay ku badbaaday waxaa lambar 1 ka ah ilaahay fadligiisa ka bacdi dumarka soomaaliyeed ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeen madaxda tartamaysa waxaan ugu yeerayaa
inaynu iska xullo qof dadka hogaamin kara inteena kalena aan la shaqayno diyaar baan anigu ahay haddii lay doortana inaan si xalaala ku hogaamiyo haddii qof iga fiican yimaadana inaan kula shaqeeyo aan ku garab istaago anigu tartan baan galay ballan baan galay balantii aan galna waan ka soo baxay oo ahayd inaanu qofka noogu horeeya aan u helino ugu dambayn waxaan leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan wanaagsan adduunka dadka waxaa kala saara hoggaanka fiican waxaan qabaa anigu in la yaqaano dadka yaqaana taageersan waxaan ka codsanay inay taageeraan morally iyo financially dhiirigelin iyo dhaqaale intaba inay igu taageeraan aniguna waxaan u ballan qaadayaa meesha iga filayaan iyo meel ka fiican inaan tago insha allahu mas-uuliyadda igu aadana aan ka soo baxo intaa wixii ka dambeeya ilaahay baan baryaynaa inuu Soomaaliya nasri u soo celiyo dalka iyaga noo badbaadiyo ummadda Soomaaliya isu keeno isaga ilaahay awoodaa leh innahu caliimun qadiir